بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتين دمانتين سيدا نوغا براتين كسر دواده حفل سنادكي abaalmarinta ahayd lagu qaban jiray magaalada London ee abaalmarinta ahayd ee loo yaqaanay UK Somali Awards kusoo dhawaada walaalayaal xafladii la qaban jiray sanad kasta oo ay ku saabsanayd dadkii wax qabtay oo aanu qaban qaabinayno qofkii loo soo cadeyn lahaa sanadkan oo ay kamid yihiin tacliinta sida ardayda iskuulada jaamacadaha ama macallimiinta waxaad u soo codeysaa ciyaaraha footballka iyo basketballka iyo wixii kale oo soo raaca mahadsanid waxa kale oo soo codeysaan fanaaniinta ama heesta ugu naasa sanadkan qofkii aad isleedihiin ummaddu wuxuu qabtay ama community ahaada ama charity ahaada ama qof gooni ahaada ama si walba oo ummaddu wax ugu qabtay codkiina ku soo taageera una soo food gareeyay u soo codee shakhsiyaadka ama hay'adaha bulshadeena wax taray ama iyagu wax qabsaday waxaan ka codsanaynaa inaad u soo codeysaan TV-da barnaamijyada ka baxa ama website-yada aad u aragtaan inay ummaddu wax u tareen marka waa inaad u codeysaan kaas leedihiin waa ugu fiican yahay fadlakum idinka codsanayaa si walaalnimo ah Soomaalinimo ah daacadnimo ah inaad u codeysaan abwaanka iyo fanaanka ama musicianka ama laxamiista aad u aragtaan inuu yahay qofkii mudan sanadkan award la siiyo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa kale doonayna inaad u codeysaan ama u food gareysaan sida qofbu yaqaano xagga sportska sida footballka kubadda gacanta orodada iyo tenniska iyo waxyaalaha la midka dadka ku wanaagsan oo Soomaalida ah ama se coachashka ardayda tababara iyo macallimiintooda in lagu encourage gareeyo oo ay aad u food gareysaan qofkaas leedihiin dadka Soomaalida waxba u taray UK Somali Award 2011 oo ka dhacaysa London 10 December habeenka qiimiga badan hawday malaanin haya ayaa hawada ku soo marinaysa waa habeenka qaaliga ee UK Somali Awards oo dhacayo Don't Miss